gaariga qaraxa uu haleelay waxaa saarnaa 22 qof oo ku sii jeeday magaalada Balaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa uuna ka ambabaxay magaalada Muqdisho iyadoona qaraxa gaariga ku dhacay uu ahaa miinada dhulka lagu aaso dadka rakaabka ee gaariga saarnaa ayaa ahaa dad shacab ah oo ku safrayay wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye waxaana uu qaraxa ku qabsaday deegaanka Xaawo Cabdi qaraxa kadib waxa wariyaal oo TV-ga Universal ka tirsan ayaa gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay burbur xoogan ayaa ka muuqday gaariga oo ahaa nooca Soomaalida ay u taqaano caasiga amba hoomeyda tirada dadka shacabka ee qaraxa ku dhintay ayay goobjoogayaal goobta ku sugnaa inoo xaqiijiyeen inay tahay 19 oo dhammaantood ahaa rakaabka gaariga caasiga saarnaa saaka waxa ka dhacday meesha dhacdo oo nahtiin leh oo maartay dad shacab ah meeshaas ku baabacay gaarayeen tiradooda 20 oo halkaas gaarigaas oo saarneed oo 3 qof kaliya ka badbaaday 19 halkaas oo ku dhintay marka anaga dadka u horeeyay oo ku soo baxay ayaan ka mid ahay oo dadka miidadka oo guray oo qaar hataa naftirkooda oo maartay nafta kaliya oo maartay marka gaariga saareen halkaas ku naf waayeen 3 qofna laba oo nin iyo hal gabar ah ay ayaan ku ka badbaadeen Cabdi Cali Shire oo ah milkiilaha gaariga miinada kula qaraxday deegaanka Xaawo Cabdi iyo kabtan Cabdullaahi Axmed Xalane taliyaha saldhigga booliska ceelasha biyaha ayaa Universal uga waramay qasaaraha saakay nuskii saac oo ex control iga soo tagay gaarigan aniga nin shacab ahaan oo shaqaystaan ahay xamar iyo waxaan ka shaqeeyaa Walaweyn nuskii saac markuu iga soo tagay 20 daqiiqo gudahood oo iga soo maqnaay anigoon war u hayna la soo wacay in ilaahay baa maqaadiirtiis waaye ilaahay baa noo kasay alxamdulillah intii dhimatana Allah u naxariisto intii ay ka dhinteen samar iyo iimaan Allah ka siiyo anigana waxaan ilaahay ka baryaa bedel khayr qaba in ilaahay iigu bedelo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un saaka meeshan masiiba ka dhacday dad shacab oo iska safra miina loo dhigay wax ay galabsadeen ma dareemi karna anaku marka gaariga caasiga sida xogtooda waxa saaray 22 qofood waxa ka badbaaday 3 qofood intii kale dhaawac iyo dhimasho ay noqdeen marka waxaan hadda u kalmeedadkii iyo dhaawac iyo baalka waxaan qaadnay xamar isbitaal Madiina qaybaan geeyay isbitaal kalena waa la geeyay marka meeshaas masiibadaas ka dhacday intii dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacana ilaahay ha bogsiyo aan leenahay wax kale oo hadda aan baalkii aan sheegi karno lama arko masiibada u jeedina ka dhacday meesha dadka dhaawacyada ay ka soo gaareen qaraxa saaka ka dhacay deegaanka Xaawo Cabdi ayaa la soo gaarsiiyay isbitaalka Madiina agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaa ka waramay dhaawacyada la soo gaarsiiyay isbitaalkaasi bariyahan waa caymanay hal ama labo iyo dhaawac waxa soo iimaanay maanta qaraxi dhacay wuxuu sababay in isbitaalka la keeno 13 ruux 13ka 7 dhaawac ay ahayd oo yaani badina u badnaayeen madaxa inay ka dhaawacnaayeen saaladan u tagnay waa xilinay waa daaweynay lixna waxaana la ku keenay mid marka tirada guud waxa waaye 7 dhaawaca iyo 6 meeda intaas waa maanta wax aan la kulanay محمد علي وهيلية يونيفرسال TV deegaanka La Foole